gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland garsoore Yuusuf Ismaaciil Cali oo hogaaminaya wafdi ballaaran oo ka socda guddida cadaaladda ee Somaliland ayaa maanta maxkamadda gobolka Saaxil ee Berbera ku dhageystay kiisas kala duwan oo la xiriira dil iyo waliba kufsi iyo kiisas kale kuwaasi oo uu gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland uga warramay warbaahinta maruu kula hadlayay magaalada Berbera waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii ka mid ahaa Berbera maanta waa naga ugu timid marxatiga ka tahay waxaan ku dhageysanay saddex kiis oo qaab laba dil yihiin midna kufsi yahay afar kiis baa kan lagu diyaarsanaa mid waxa la yiraahdaa ciidankii asluubta maxbuuska xabsiga Madheera ayuu garsoor ku yahay ama uu macnahaas jooga halkaana qaar baa lagu sugaya socdaalka iyagu guud ahaan wuxuu ahaa mid shaqo mid hawleed oo aan ku tirtirgelinay qaadista rafcaanada garsoorayaasha maxkamadda sare u xidhnaa xabsiyada kala duwan ku xidhnaa iyo inaan dadka u soo dhaweyno cadaaladda halkii maxkamadda sare oo fadhigeedu hargeysan yahay aan kiisaska ku dhageysan jirnay waqtigii hore waxaan door bidnay gobollada inaan kusoo dhageysano si cadaaladda dadka laftoodu ay uga qayb qaataan oo nolol dhageystaan oo ay la socdaan geedi socodka cadaaladda kiis walba halka ku dhammaanay ku intihoonayo iyo go'aanada maxkamaddu inay dadku markhaati ka noqdaan oo joog ka noqdaan waxa aan hargeysa intii ku xidhay hargeysa ku dhageysan socdaalka gudoomiyaha maxkamadda sare iyo wafdigan uu hogaaminayo ayaa qayb ka ah socdaalo ugu kuurgalayo kiisaska kala duwan ee yaala maxkamadaha dalka isagoo horena socdaal noocan oo kale ah ugu soo maray xarunta gobolka Togdheer ee Burco oo uu ku dhageystay kiisas kuwan oo kale ah Cabdikariim Siciid Saalax telefishinka caalamiga ah ee Home Cable TV Berbera.